السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kusoo dhawaada channelka RUMAANI media. Magaciiguna waa Abbas Mustafa. Waxaan maanta muqalkena kusoo qaadan doonaa qarniyo ka hor sida ay dadku u fikirayaan iyo sida maanta ay u fikirayaan. Intaan muqalka u gudagelin like saar videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-kana oo badan gaarsiiyo. sayniska iyo diimaha isdiidooyin badan baa dhaxyaal oo ilaa maanta taagan kuwa hadda kadib imaan doonana ay jiri doonaan. Badana isdiidooyinkaas waxaa sababay hadba casriga la joogo iyo sida nolosha ay suuragal u tahay iyo horumarka ay ummad kasta ku sugan tahay iyo qalabka ay haysato. bini'aadanka 2000 sano ka hor sida uu wax u arkayay una fikirayay maanta uma fikiro oo isbedel baa ku yimid. 100 sano ama dhowr kun sano ka hor aadamu aqoontiisu laba jii ayay ka imaanaysay oo ahayd diin iyo dhaqan ummad kasta ay lahayd oo jaagoon jirtay waxyaabaha iyaga ku xiran iyo hab nololeedkoodaba. Badana diin kasta dhaqanka ummadda haysato ayay xoojin jirtay oo waxyaabaha ay isticmaalaan ayaa astaan u ahaa. Maantase isbedel baa ku yimid oo cilmiga ayaa noqday mid wax kasta lagu laabto kaasoo sito cadeemo iyo aragtiyo in badan burburiyay dhaqamadii iyo fikradihii diimiga ahaa ee aadamuhu haystay qarniyo ka hor. Tusaale, kumanaan sano ka hor qorax madoowaadka iyo dayax madoowaadkaba waxay ummadda u haysteen musiibo iyo dunuub iyaga ka dhaxdhacday oo ay bagu carooday. balse hadda aqoonta oo raadraac dheer samaysay ayaa ku xaqiijiyay dhacdooyinkaas inay sababaan isbedel socod oo ku yimid dhulka iyo dayax madoowaadka ayaa la ogaaday, taasoo fududeysay in la ogaado 10 ilaa 100 sano ee soo socdo qarax madoowaadka iyo dayax madoowaadka dhici doono. maanta way adag tahay in bini'aadanku weli rumaysnaado in dhacdooyinkaasi yihiin caro eebe oo waxaa meesha imaanaya su'aal ah sidee aadamuhu ku ogaadeen in maalinta eebe caroon doono. sidoo kale aadamuhu wuxuu marayaa heer oo bacrimiya hawadiisa uuna ku beero daruuro gacan ku samays ah si uu waqtigo doono uu roob u helo. farsamadaas waxaa laga isticmaalaa meelo badan oo roobku ku yar yahay sida bariga dhexe oo roobku waa la samaysan karaa maanta. sida aynu ognahay daruuraha waxay ka samaysmaan uumibaxa biyaha badda ee hawada gala, sidaas oo kale ay warshadaha uumi nadiif ah ku siiyaan hawada ay roob ugu sameeyaan. saynisku waxyaabo badan buu ka caawiyay aadamaha. khataro badan oo deegaano burburin lahaa ayuu ka hor istaagay. 100 sano ka hor dhulgariir lagu rugmaday cidna warkama aysan helin xilliga ay dhici karaan iyo sida loo gaashaanto. maanta in badan oo ka mid ah waa la sii ogaaday waqtiga ay dhici karaan. lama soo koobi karo waxyaabo la yaab iyo mucjiso ahaa qarniyo ka hor oo maanta ah wax cidna aysan daneen ama loo daabasho tago markii ay dhacayaan.